xuska maalinta dhirbeerista qaranka Soomaaliland ee 15 bisha Afraad ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ku leedahay magaalada Burco waxaana munaasabad kooban oo loo qabtay ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo saraakiil kale maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer Cabdilaahi Xuseen Jaamac iyo barasaabka gobolka Togdheer ayaa si wada jira faahfaahin uga bixiyay hawshan dhirbeerista iyagoo sidoo kale mas'uuliyiinta xarumaha dawladda ku amray inay dhirbeerista ka qayb qaataan maanta waxa weeyaan waa 15 April oo maalintii qaranku u aasteeyay maalinta dhirbeerista qaranka waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa laga xusayaa maalinta dhirbeerista qaranka markii hore 5 June bay ahayd xuska maalintu dabadna madaxweynuhu waa kii ku dhawaaqay 10 bisha in laga dhigo 15 April marka waxay diyaar garow iyo dhir aan haynay waan diyaar garownay gobol ahaan Togdheer ahaan marka waxa weeyaan ilaa 5 geed baan bixinaynaa insha Allah hadii wixii hore iyo wixii dambaba imka waxaan ugu talagalay inaan hay'adaha dawladda iyo dadweynaha wixii ay ka gaadhay inaan ka furiyo wixii aan hayno iyo ciidamada qaranka oo kala duwan noocyada kala duwan militariga bilayska iyo asluubta waxa kale aan u yeernay afartii xaafadood ee ay ka koobnayd magaalada Burco oo iyagana wixii ay ka helaan qayb ahaan aanu siin doono maanta dhir qaybinta ku daray wasaaradihii dawladda oo iyagana aanu sidayaashii wasaaradii waxbarashada iyo caafimaadka iyagana cidii timaada aanu ugu talagalay inaanu siino dhirtii marka waa munaasabad runtii aad u qaaliya waynu ognahay dhirteennii iyo dalkeennii xaaladooda halka ay marayso wax la gooyay iyo wax dhuxul laga shiday baa dhirtii dalku ku dhamaatay dhirta waxa loo baahan yahay inaynu gobol ahaan ka faa'iideysano waxaan ugu horeysiinayaa xafiisyada dawladda madaxda xafiisyada dawladda waxaan jecelahay inaan halkan ka faro in xafiis walba dhirta laga beero waad ogtihiin oo dhirtu meeshay ku badantay waxay ka qayb qaataan xataa roobka way ka qayb qaataan marka walaalayaal waxaan jecelahay inaynu maanta ka faa'iideysano oo dhirta beero oo waxa weeyaan meel kasta oo ku munaasib ah in dhir laga beero dhirta laga beero abaanduulaha ciidamada qaranka Soomaaliland ee qaybta 12aad oo isaguna munaasabadan ka soo qayb galay ayaa sheegay inay ka go'an tahay hawsha dhirbeeristu waxaanu ballan qaaday inay xarumahooda dhirta ku beerayaan anagu dhirta waanu beernaa xiriyahayaga oo dhow aad bay uga baxdaa waanu beernaa maanta maalintii sida gaar loo aasteeyay waanu ka qayb qaadanayna imkana qaybteeda waanu qaadanaynaa mas'uuliyiinta waxyaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Burco ayaa iyaguna xuskaasi ka soo qayb galay waxaana halkaasi loogu qaybiyay dhir kala duwan Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.